إلا معلوم قرا ما أركتان هاست قروح بدرت في هذا كبح ذا اللي راد هاي أركتد في يوبي ودنا كدس ما جاي أركان لا دقة حد جاي أركان هل كان مقص وحلو قصر يلا ماركو xildhibaan Axmed Nuur Guruuj oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo xarunta baarlamaanka kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu dhaliilo u soo jeediyay gudida gurmadka abaaraha ee Soomaaliland ee uu gudoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland sidoo kalena waxa uu bogaadiyay xildhibaanku talaabadii uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ku fasaxay keenista shidaalka waa kan xildhibaanka oo ka hadlaya arintaas iyo arrimo kale oo koodii bishii 3aad 2022 ama koodii Maarch 2022 waxaan ka hadlayaa laba qodob oo kala ah go'aanka madaxweynaha uu shalay soo jeediyay arrimaha shidaalka iyo gudida abaaraha bixitaankooda ay baxeen waa takoobaade shirkii jaraa'id ee isugu keen dambeeyay ee aynu halkan kaga hadalnay iyo fadhigii golaha ugu dambeeyay ee abaaraha laga hadlayay doodii aan ka soo jeediyay iyo hadalladii dubariyii ugu dambeeyay 3 bilood ee ugu dambeeyay waxa ku saabsanaan arrimaha shidaalka maalintii ugu dambeysay waxaan soo gaarsiiyay madaxweyne haddii aad shidaalka arrinkiisa wax ka bedesho waxa laga yaabaa Ilaahay baynu jannada kugu geeyay shalay madaxweynaha waxa ka soo yeedhay go'aan ku saabsan shidaalka oo dadku oo dhamay aad iyo aad ugu farxeen soona dhaweeyeen aadna uga mahadnaqeen marka anigoo ku hadlaya oo ka jawaabaya dareenka shacabka ee aanu matalaadiisa halkan u fadhino waxaan madaxweynaha halkan ka gaarsiinayaa mahadnaq iyo taageero iyo bogaadin ku saabsan arrimaha shidaalka waxaan leeyahay madaxweyne mar walba waxaanu halkan u joognaa dareenka dhabta ah ee shacabkaaga inaanu ku soo gaarsiino waayo annagu wakiiladii shacbiga aanu nahay habeen iyo maalin annaga dadka dhex fadhina waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan ayaanu ku soo gaarsiinaynaa mar kasta oo aad qaadato go'aan ummadda ka farxinayana waxaanu ku soo gaarsiinaynaa mahadnaqooda cadaalad maaha inaanu marka wax qaldan yihiin ku sheegno marka wax saxan yihiin aanu aamusno taas ma aha wax cadaalad ah marka aad wax saxdo waanu ku mahadnaqaynaa marka madaxweyne waxaan ku leenahay maanta waad mahadsan tahay halka ka sii wad mar walbana dadkaaga dhageyso oo madaxweyne dadkaaga u jooji oo u jiif talada oo u janjeedi oo mar walba wixii aan shariicada islaamka ka horimaneynba wixii dadka dani ugu jirta yeel annaguna waanu kugu gargaar taaganahay umadaaduna waa kugu barbar taagan tahay ilaahay xaqiisana siyaasadda ugu dhawaanaysa marka madaxweyne adiga maanta waxaan mahadnaq iyo bogaadinahayn kuma hayo dadka u haysteen anigu inaan madaxweynaha wax gaara ku haysta ama si gaar ah u diideynayna waxa la maanta baarka anigu dadku ma lu hadlaayo madaxweynuhu markuu dadku wanaajiyo qofka koobaad hambalyeynaya baan taas waa inta qodobka labaad ka hadlay waa gudida abaaraha waxaad moodaa juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaan iyo maamul ahaan in Soomaaliland loo qaybiyay laba qaybood oo kala ah bari iyo galbeed marka bari laga hadlayo waxa laga bilaabaa gobolka Togdheer xuduudkiisa halka ugu soo galbeedaysa marka galbeedka Soomaaliland laga hadlayna waxa laga bilaabaa galbeedka Hargeysa sidaa darteed waxa meesha ka baxay deegaan la yiraahdo Candho Dhexe oo aan bariga Soomaaliland la xisaabsanayn ka galbeedna aan xisaabsanayn oo halka lagu ilaaway deegaankaasi wax alla wax qorsho oo ku jira ma jiro waana arrintii aan bariyay u dambeysay oo dhan iyana ka hadlayay tusaale waxa inoogu filan gudidii abaaru waa kuwii maalintii dhaweyd tarhad baxay waxay ka bilaabeen safarkooda tuulada ugu sokayso gobolka Togdheer ee ku taalo wax ka yar 2 kiiloomitir xuduudka gobolada Maroodi Jeex iyo Togdheer tuulada Harasheeg bay ka bilaabeen waxaanay socon doonaan ilaa Sooliyo salaagalka ugu dambaysa goornowna sidii caadada ahayd galbeedka lagu qaban doonaa bay oran doonaan oo galbeedka Hargeysa ka bilaabay deegaanka Candho Dhexe deemo cid ku haleynayaan waxaan isweydiinaynaa talo deegaanka koonfurta bariga Hargeysa ma Puntland ba miyaanu isagu Soomaaliland tan la sheegayaan oo hayno aanu dad wadanka ka tirsanayn xitaa booqashada maxaa u diiday guddiga abaaraha ilaa abaartu
halkanba way ka jirtaa deegaankan waxa yaalla dadkii abaaraha ka soo qaxay gobollada fogfog ee Ogaadeenaya waxa yaalla dadkii xeebaha Soomaaliland ka soo guuray dhammaantood way wadayeelaayeen way baadlaayeen booyada biyihii waxay maraysaa 4 milyan haddana madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdiga abaaruhu watay 3 kilomitir bay soo jirsaday iyagoo halkaa ka soo eegay kadibna bari bay qabteen waxa la yidhi 1800 iyo 22 ayaa waddankan Mareykanku wuxuu gobollo badan ka qabsaday waddanka Mexico oo aad u taal daran dabeetana madaxweynaha Mexico oo aad arinta uga cabanaya baa yidhi Mexicada faqiirkii ilaahayna aad bay uga fog tahay Mareykankana aad bay ugu dhowdahay imika waa halkii madaxweynaha Mexico Diaz loo oran jiray deegaankan bariga iyo koonfurta Hargeysa juqraafi ahaan aad buu ugu dhow yahay caasimadda iyo xafiisyada dawladda haddana mashaariicdeeda iyo waxtarkeeda aad buu uga fog yahay waxaanu leenahay madaxweyne ku-xigeenka iyo guddida abaaraha hadalkii gaariyaha isagoo madmadow iyo midab aan lahayn dadku waa masaahamad baxadligu cadaalad maaha oo caqli maaha in deegaanada abaaraha ee Hargeysa duleedkeeda aan biyeeye baatoona aan la gaarsiinin lana soo eegin waxa maanta aan halkan ka iftiiminayaa oo kale MCH-ka ku yaalla xaafadda Guryasamo ee magaalada bartankeeda iyo MCH-ka Salaxley waxba uma dhaxeeyaan wax MCH deegaanka inta la ku yaalo kale ma jiro MCH-ka Salaxley iyo ka sababanaag 180 kilomitir waxba uma dhaxeeyaan MCH kale uma dhaxeeyo dhakhtarkii sababanaag waa xidhay wuxuu xulayay shaqaalihiisii oo mushaar lahayn iyo dawalaan xilliga abaaraha iyo lagu jiro nafaqa darrada hay'ad baa awal gacanta ku hayn jirtay isbitaalkana dadka dhistay hay'ad way ka baxday oo mashruuceedii baa dhamaaday shaqaalihiina uu iskaga yimi dawlad ma taalo MCH-ka itaalka daranay sabab wanaag waxa ugu soo xiga ka ku yaalla tiyaatarka Hargeysa oo 180 kilomitir isna deegaankaasi sidaas u caafimaad ka yahay biyo waan iga sheegay in 510 ceel la sheegay biyaha aan hal riig loo qodin waxa ka dambeeyay 230 ceel oo wasiirka in hawlaha guud Cabdullaahi Abubakar yidhi 3 sano u dambeysay baa dawladdu jeebkeeda ka qotay ama miisaaniyadeeda kuwaana deegaanka hal riig laga ma qodin waxaanu leenahay haddii waddanka cadaalad darradiisa si loo wado xagga samada laynaga ganaaxay oo waxa abaaraha soo noqonaya iyo ictiraafka inaga raagay inuu wacan waa cadaalad darrada dadka cadaalad buu dalku u baahan yahay oo waliba madaxweyne adiga waddanka cid walba uga aqoon badan deegaankan candha dhaxal leeyaana magaca adiga bixiyo waqtigii halganka waxa tidhi waa deegaan muhiim ah oo Hargeysa Berbera isku xidha oo si wanaagsan halganka ugu jira madaxweyne deegaankii candha dhaxe waagii halganka waa la jeclaa waa deegaankii aad baa joog jirtay waa deegaankii Axmed Siiraayo gudoomiyaha sarmo ku soo dhaweysay madaxweyne maanta markii barwaaqo helay deegaanka candha dhaxe maxaa lagu nacay miyaa laga maarmo waxaanu leenahay deegaanka candha dhaxe sidoo wariga u halgamayay ayuu imikana waddanka u jecel yahay laakiin xukuumaddu ha u soo jeesato oo dadka si isku mid ah u eegto hadalkaan ku soo celcelinayo si loo hubsado waxa iyana u soo jeedinaya hay'adaha samafalka caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo saxaafadda iyo xitaa xisbiyada mucaaradka baldeegaanka inay booqdaan oo waxa aan ku hadlayno soo eegaan ilaa maalin qura ma aragtaan heestan quruxda badan ee tifiyada ka baxday la yiraahdo aragtida fayoobi waddanka dhismaya yarkaan la dhagax dhigaya yarkaan halkan ma qas wax lagu jarayo lama arko dhagax meel la dhigayo lama arko hees ka baxaysa lama arko ma heestaasi kama baxdo ma heestaasi ma jirto bal markaa waxaan leeyahay saxaafadii inay hor joogtay iyo xisbiyada mucaaradka iyo hay'adaha iyo wasaaradii tagi waa maqas iyo dhagactoona ma geeyaan bal soo eego idina soo sawiro bal la soo arkaa waa mahadsantii Axmed Maxamuud Dalsan TV Hargeysa